بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصولا بورتال waxaan idinkala soo hadlayaa bartamaha magaalada Dhuusamareeb waxay caasimad u ahaan jirtay Galgaduud iminkana waxay u tahay caasimad Galmudug wadadan dhankan waxay aadaysaa Muqdisho dhankan waxay aadaysaa Boosaaso waa magaalo aad u qurux badan nabad leh waxa ka socda shirkii dawlad goboleedka shan dawlad goboleed isla markaana waxa magaalada soo gaaray ra'iisul wasaaraha marka waad aragtaan nabadii caano magaalada runtii aad ayaan ula dhacay laamigan waa laamigii originalka ahaa ee zaman hore la dhisay wacyigelin ayaan maqlaa gaari wacyigelin ayaa socda waa maqlaysaan waaba bariyay reer Galmudug waaba u bariyay kulay saad u aragtaan maqlaysaan marka galabtii hore ayaa la joogaa waa la soo baxay dukaamada shoppingka waa centerka meeshan waa Maka al-Mukarramada Galmudug ama Dhuusamareeb waad arkaysaa dad badan ayaa fadhiya meeshan Daruuro Airline Blue Sky shaahba la cabaya nabad baa meesha ka socota marka mar kale aan ku celiyo wadadan dhankan waxay aadaysaa Boosaaso dhankan haddaan u yara jaleeca gawaarida ay ka socotaan waxay aadaysaa dhanka iyo Muqdisho ay aadaysaa security aad ayaa loo adkeeyay madax aad u weyn ayaa jirta laakiin magaaladu nabadeeda aad ay wanaagsan tahay waad arkaysaan marka vloggan waxaan ugu talagalay dadka asxaabta reer Dhuusamareeb reer Galmudug iyo asxaabta kale in aan la qaybsado magaaladan quruxda badan ee ku taala bartamaha waddanka Soomaaliya anteenada hormuud wada aragtaan hormuud walba way joogtaa ma sha Allah marka magaalada Baashaal ayaa ka socda security walaadkay marka bartamaha ayaa ku soo dhownaa astaan ayay leedahay astaanta magaalada Dhuusamareeb marka Dhuusamareeb ilaa iyo dhowr boqol oo kiiloomitir waxaan filayaa ilaa in ku dhow 500 oo kiiloomitir ama 400 500 inta u dhaxaysa ayay caasimada Soomaaliya u jirtaa diyaaradu waxay u socotaa hal saac baabuurna lama garan karo intay u soconayso marka iminka waxaan ku sii soconaa farsmagaalaha astaan taalla ayaa ku taalla oo daljirka dahsoon oo kale ayaa ku taalla taasoo dad badan ay fadhiyaan lagu baashaalayo reer Galmudug runtii kaamirada ma nacba ma ahan kuwan qurba joogtay kuwa xamar jooga marka kaamira lagu soo aadiyay cararay dadku iska baashaalayaan shaah baa la iska cabaya marka calamadii oo dhan halkan ay yaalaan oo dawlad goboleedkii magaalada aad ayaa loo soo buux dhaafiyay runtii dhismaha waa magaalo gawaan ah hadii loo fiiriyo hobyo oo aan tagnay geeyahan way ka duwan dadku iska baashaalayaan waa la iska fadhiyaa marka mar saddexaad ayaan ku celinay wadadan Boosaaso ayay aadaysaa dhankan haddaan u leexdana waxay aadaysaa Muqdisho ayay aadaysaa marka waad u jeedaan Land Cruiser waxaan ahayn magaalada kama socoto jawiga aad ayuu qabow yahay roob ayaa ka da'ay runtiina aad ayaan u dhacay sida nabad ay u taalo magaalada Dhuusamareeb ay u taalo marka meel walba ciidan ayaa jooga tabcan madax ayaa joogta ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa jooga dawlad goboleedkii ayaa jooga dhamaantood waxa ka maqan kaliya mudane Deni oo tacsi u aaday ugu laabtay magaalada Garowe marka iminka waxaan isku dayayaa dhankan in aan idin tuso meeshan ay anteenada hormuud ay ka taagan tahay oo weyn in aan idin tuso taasoo ah bartamaha magaalada oo la fadhiisto Orey Balqees dukaamo qatar ayaan u jeedaa marka dhankaas ayaan aadayaa waxaan idin tusayaa wadada ayaan jarayaa waxaan aadayaa dhankaas kale si aan u aragno taalada ugu caansan magaalada Dhuusamareeb ugu caansan oo dad badan maqaayad ay fadhiyaan reer Dhuusamareeb kaamira kama baqaan dad badan oo aan aqaanay oo jeeda kaamirada mar raba inaan ku aadiyo waana salaamayaa marka hambaliyo Galmudug ayaa ku qoran marka asxaabteed reer Galmudug reer Soomaaliya waxaan rabaa inay gula baashaalaan ay arkaan taalada bartamaha magaalada ku taala si ay ogaadaan dusha idin ka tusaya fiiri jawiga aad ma kulula magaalada carro oo bus ah ma ahan وين سلامي odayash waan salaamay soo portal meel walba laga yaqaan oo maqlaysaan waan salaamay odayash reer Dhuusamareeb hada soo portal wax dhaaman lawa marka waad u jeedaan calamadii waa ku dhageen shantii dawlad goboleed ee Soomaaliya waxa ugu horeeya dhanka bidix waa calankay quruxda badnaa calanka Soomaaliyeed ee calanka kaliya aan aaminsanahay iyo calamada kalena dadka samaystay hadii aaminsan wala la aaminayay laftigooda waa Galmudug waa South West waa kan saddexaad waxaan filayaa Puntland waxa kale oo ku jira Hirshabeelle
iyo south west hirshabelle shantoodii waa kan halkan waa bartamaha marka mudane qoorqoorna madaxweynaha dowlad goboleedka axmed cabdi kaariye qoorqoorna waa halkan u yaala shanta madaxweyne oo qoorqoor dhexda ugu jiro hadda isla joogana meesha ay yaalaan marka ujeedaa jawiga magaalada runtii aad ayuu qurux badan yahay aad ujeedaan ariga nabad ayay ku joogaan cid la hadlaysa ma jirto maqaayadaha la fadhiya marka waxaan isku dayaa in vlogyo kala duwan oo qurux badan aan ka sameeyo bal fiiri dadka nabadda waa la shaahaya aad ayaa loo shaahaya magaalada ujeedaa marka kuwa kale ayaan ka diyaarinaya insha Allah waxaan ka soo salaamayaa magaalada Dhuusmareeb